السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتين كسر وهذا الجنة كنا رمضان مبارك عيد مبارك أي أدين سيدها وسي هرمرينا يا رمضان وسي جب الله نجا أقبله إن بل أن إسلا أجنا جب داني قصة ذا سوري والله أدبا وقحمة هاي كليجي يا لبعنك labada cunug anigoo wato ayaa imaaday sanad markaan jooga kadibna waxaan u sheegay kuwii keenay in ilmahayga aabood qaxootiga uu joogo marka way weydiiyeen informationkiisa aan siiyay asagana waa la weydiiyay gabadhaas marabta in lagu geeyaa diyaar waa la isoo qaaday aday muddo 2 bilood 3 bilood gudaheeda igu keeneen markaan sheegtay soo marka hal sano aan ka soo horeeyay ani markuu imaanay بس أنا إسكا شقيسانا جارية إسكا وتو إماضي إن وإسلا شقيسانيني عدنا حاملة إسكا نقضي لابد عنك أساقع دالي أمر كورو التيبو بس حاملة إسكا نقضي قولك إسكا في الإستيقاري وذوقي أنتو سي جاريك أنا قادي جري شقادم كنت جنجري مركو صالة بنايان إنتا أديبان إيه جروات على كل حال جاريك إيوحي وان براي مركان أساقع شقادة آذاي مركو حو ساقين جري شيفت labaad oo loo yaqaan second shift wuxuu gali jiray 8 saac maalinimo wuxuu ka soo bixi jiray 10 4 saac habeenimo soo u taqaanaan dadka Afrika soo 4 saac habeenimo ka soo bixi jiray sidii asagoo sameynaayo aniga xaamila iska noqday guriga iska jooga habeen marka ma imaanayo wuxuu imaanaa late xisaq dhaxe habeena marka ku qabto waxaan leeyahay aminka inta ka imaanaysa markaas uu yiri caasho wiilalan bartay Nigerian ayagan time iskala qaata saas miyaha haye waaye waa iska dhaafe sidoo saas u sameynay marka dambe wuxuu gaaray heer guriga ma imaanayaba subaxii 5 in the morning uu imaana xaamila aha aniga waa iska dhibanahay bas marka dambe waxaan dhahay saaxiibo xilligan maxay tahay imaanaysid ani adi roommate maana dad oo wada wuxuu ugu yiri saas ma ahane in wiil baan saas adi wax un buu sheegaa wiilan iskala baashaalay halkaas warda igu qabat halkaas aan ku dhacay balabla farhan ka qaaday marka dambe qaylideeda badatay maxaa inta ka imaan inta u socotaadeyda badatay ninkan habeenkii uu imaanaa 10 o'clock markuu 4 saac markuu shaqada ka soo baxo uu imaanaa uu casheena aanu iikeena masibiyo iikeena kinini gurdadu igu daraa ani ma ogi ilaa hadda dhow aan ogaado inuu saas igu sameynay kinini igu daraaya dig ana waa seexana oo dhaqaajina markaas uu baxaa maalmaha kamid asagoo naag wado ii keenay naagta waa naag cadaan iyo madow iska dhaleen naagta marka dhagool waay ani markaas uu ii sheegay xitaa inuu been sheega uma leenay naagta is dhagool ahayn laakiin naagta waa dhagool gadaalanka ogaan doona waa dhagool naagta wuxuu igu yiri caasho gas station anoo gas ka qaadanayo meesha gaaska laga shubto anoo gaari gas ku shuban naagtan gaariga anoo gadaal u baxaayo baan gaariga ku dhufta naagtan in askarina rabtaa inay igu wacdo waxaan rabaa inaan wixii aan save gareysanayna naagtan aasiisid say isoo dabagelinsayn askar igu wacin saas miyaha haye waayahe $1 aan siina may $1 ma aha inta aan save gareynayna dhan naagtan si hadii kale ahayn askar igu wacaysa Somali weyn naagtaas waa naag saa ani u riman oo kala u riman oo uur u yeelay waa naag ay isla shaqeeyaan waa naag ay darooga isla cabaan waa naagta daroogada bartay aniga ma ogi ilaahay baa og lacagtii meesha galiyay intaan soo bixiyay aan dhahay hadda heblow lacagtaan dhama fartan ka saara naagtaan ha si naagta lacagtii aan siiyay naagta way baxday naagta lacagtii wixii aan aruurinay dhan waan siiyay naagta lacagtii qaadatay way baxday bas adi 2 week 3 week kadib waxaan noqday cunugtii aan dhalay gabar yaraan dhalay isbitaalkan ku jira cunugtu waxba ka qaldan kiniiniyadu wax igu dari jiray ma cunugtu wax yeela ma ogi Allahu a'lam